راي أنا فنان ميهي لكن قيرة أنت يا كنتي waxaan doonayaa laakiin sanadii sheego maalinta luulyo in calanka la soo qaato oo kaliya waddankeenu ma baahna waddankeenu wuxuu baahan yahay intaa in ka badan wadtaqaanaan baraha bulshada ee social mediaha maalinta kooda luulyo qof kasta calanku soo dhigayaa gabayaa la tirinayaa baraanburaa la tirinayaa waddankeenu intaa in ka badan buu u baahan yahay waxaana lagu samayn karaa haddaan halka ka faa'iidaysano qofku waa inuu waddanku uu joogo wax ka noqdaa markaasuu waddankiisa wax tari karaa haddaa waddankiina jeceshihiin oo kalgacal u qabtaan waa inaan halka wax ka noqonnaa waa inaan luqadda halkan barannaa waa inaan shaqooyinka xagga ka shaqaynaa waa inaan wax barannaa markaasaan waddankiina wax tari karaynaa maalin dhaweyd waxaan dhegaysanayay ra-iisul wasaare khayre markuu joogay Norway khudbadihiisa waxaa ku jirtay hadallo badan oo aad u xikmad leh ayuu sheegayay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa roobku markuu ka da'ayo xamar dalad ha ka qaadanina idinkoo Oslo jooga ee daladda waxaa qaadataa markuu roobku Oslo ka da'ayo hadalkaas xikmad baa ku jirta waa in mataqaana waddankeenu uma baahna dad mataqaana maalin walba hadal haya waxaan u baahanahay halkan inaan la soconno waxaa kaloo loo baahan yahay qofka Soomaaliyeed markuu ku yiraahdo anigu waxaan rabaa inaan halkaa gaaro su'aasha habboon ee la doonayo qofka in la weydiiyo waxa weeye maxaan ku qaban karaa anigu si halkaa u gaadid waa inaan ku fiicannahay istaageerista qofkii doonaya inuu meel sare gaaro in la iscaawiyo la istaageero saasaan horumar ku samayn karaynaa hadalkaygu ma daalin doono hal arrinoo keliya doonaya inaan ku soo gabagabeeyo warwar aniga aad u weyn baa haya waad ogtihiin sanadkan waa sanad doorasho ka dhacaysa halkan joornaaladu waxaa lagu soo qoraa maalin walba in xisbiga cunsuriyiintu kor u soo kacayaan marka qaar waxaa lagu saadiyaa inay noqon doonaan inay xukunka qayb ku yeelan doonaan waa arrin aniga murugo badan iyo warwar badan ingelisay sababtu waxaa weeye dadkaasi hadday xoogaystaan dadkay saamaynayaan waa innaga dadka dhibaatadu ay ku dhacaysa waa innaga dhibaatadaasi weli mayna taaban waan iska celin karnaa laakiin innagay nagu xirantay saan u kacayno saan isaga celinayno marka hal arrin baan doonayaa inaad ii ballan qaataan maanta qofkaad doonaysaan taageera xisbigaad doonaysaan u codeeya laakiin aniga mid ii ballan qaada in maalinta doorashada ay codaysaan waa mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato